doorashadan qaban karo oo loogu dambeyn karo okay saddex shay ayaan rabnaa inaan kala saarno maadaama la kala jabay qaybna ay wasiirka ay raacsan yihiin qaybna ay shiina ay raacsan yihiin group kalan oo ciyaalka xaafadda haatan ay soo baxeen sida aan markaas aan ka arkaynay saxaafadda isboortiga Soomaaliya siiba telefishinada kala duwan ee Muqdisho ku yaala oo qof waliba ay wareysanayaan arrintan aad moodo inay noqotay mid runtii ay saxaafaddana qayb ay ka leedahay inay arrintan sii burburto waayo qof waliba haddii la wareysto isboortiga ah qofkii kubad alaal qof soo taabta haddii la wareysto la yiraahdo war arrintan ka waran oo sida isagu uu jecel yahay oo uga jawaabo saddexdan qolo ay iska soo horjeeda way aysan iyaga aysan u kulmin loogana soo saarin go'aan cad oo ku saabsan habka doorashada number 1 su'aashaas horta dhageyso tan labaad waxa ay tahay in ay dawladda haddii arrintan ay involve ay ku sii haysato ama ay ku biirto isboortiga arrimaha taagan ma laga yaabaa in qodobadan runtii xiriirka kubadda cagta ee caalamka diyesha sheegaya hadday dawladi ay soo faragashato arrinta noocan oo kale ah in waddanka Soomaaliya laga baangarayn karo isboortiga kuwa qaranka iyo kooxaha labadaba diyesha salimo horta aniga runta marka teedi ka hadlo ilaa hadda inta badan markii la leeyahay magac xiriirka horta yaa ku hadli karo oo hadda maanta calashiina asoo hadlaayo oo micnaha doorashadan xooga saaro ka doodayo inta badan ani maba arkabo xogayaha Yusuf waa hadda asagana oo micnaha general secretary-ga asoo hadlaayo oo micnaha khilaafkan waxaan ka hadlaayo maanta lama arkaayo maanta lama dhigay xiriirkii ayaa ka hadlay ma fahamtay inta kale ugu weyn maanta meesha yaala waxay tahay salimo horta aniga Ismaaciil ahaan haddii aan ka hadlo teedi situationka maanta lagu jiro markaan ka hadlo teedi waa basit wasiirka waxaa laga rabaa kaliya inuu yiraahdo calashiine iyo wish labadiina waa maalin hebel iyo madaxa xafiiska macnaha problemkan waa iska basit salimo haddii la rabo in waqti la iska dhumayna ma aha meeshan aniga runtii waxaan aad iyo aad horta ugu naxaa macalinka macalin Nuur Amiin oo macnaha maanta hami leh oo koobkan ku soo guuleystay oo subax walba ogahay subaxnimo aroortii lagu iska baxo garoonkaas uu taagay maalintan garoonkaas uu taagay waxa ku dhacayso ciyaartooydan oo sidoo kale ayaga is diyaarinayaan oo maanta hami kale leh in hadda ayagoo intaas soo bilad soo ordayeen rafaadkan soo marayeen in hadda maanta wadankii ganaax oo galo horta waxay noqonaysaa nijab aad weyn dalkii ku imaanaya ciyaartooydii ku imaanayso macalinkana ku imaanaya sumcada caalamka intaan kala kulmayno waay teeda kale marka wasiirka markaan usoo noqdo wasiirka aniga maanta hadna booskiisa joogi lahay waa iska basit aniga go'aankan gaarle waxay tahay calashiinay wish aniga guddigan doorashada ma aaminsani waxay qabtaanna ma yeelay aniga ahaan waxaan rabaa inaan soo sameeyo guddi doorasho oo idinka aniga aan wada fadhiisano guddigaas aan isku raacno hadda raali ku tihiin si doorashada u dhacdo hadda idinka aad diidantiin ay leeyihiin aniga wasiir ahaan group ma sameynay aniga groupka ma aaminsani oo marka macnaheedu waxay tahay in loo socdo ganaax marka wasiirka booskiisa kama soo dhigi karo dhowr mar live TV-da kala duwan ka sheegay insan groupkan doorashada hadda joogo asan ahayn group sport warkiisa asagu uu cad yahay ma umaleynay inuu hadda hadalkaas dib agaragarayo macnaheedu waxay noqonaysaa maxaa xal waxaa xal guddigan doorashada inay meesha ka baxaan oo guddi cusub wasiirkan rabo ama saddexda meel ay ku qanacsan yihiin in dib loo abuuro loo doorto kadib doorashadii iyadoo lagu qudbiyo in la aado waxaan ku waaqijiraa groupkan doorashadan horta ma dhicayso ilaasan wasiirka asan groupkan laga dhaadhicinin groupkan wasiirka marna lagama dhaadhicin karo mana aaminsano groupkan inay yihiin group cadaalad wax u qaban karo muhiimadu waxay noqonaysaa haddii maanta aniga Ismaaciil ah oo maanta arrintan xilka lay saari lahay waxaan aaminsanahay in waxa laga dhigo Soomaali weyn oo maanta indhaha ku hayso oo la wada sugaayo wixii dhanbo ay saddexdan qof ay u xiran tahay wasiirka wiish iyo calashiine saddexdoona ay saddex qof oo Soomaali ay yihiin diyesha muhiimada waxay tahay inay wasiirka waxaa laga rabaa inuu TV-ga si toos u imaado u yiraahdo warniyo aniga groupkan ma rabo ee group anaa sameynayo miyay waraacaysin haddii adiga waraacin meeshan doorasho ma dhacayso horta wasiirka diyesha laba sano jaanisaan haysanaa calashiina laba sano haysataa markii lagu gadaaxo adiga wiish sidoo kale laba sano haysataa laba sano kadib aan isku imaano oo ahaan miya teeda hala yeelo guddi doorasho fiican oo nidaamsan aan samaysano waayo wasiirkan groupkan kama degay doorashada meeshan doorasho saalimo ma dhacayso diyesha wasiirka fursad aan u helay sitimaankii aanu soo dhaafnay
waxa uu yiri waxa wanaagsan sida haatan aad u sheegaysid in guddiga isboortiga ee haatan dhisan